Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa waxaa sidii caadigeed saaka isugu yimaadeen kulan ay ugu doodayeen dhowr qodob. Waxyaabaha miiska saarnaa waxaa ka mid ah doorasho lagu wada inay dalka ka dhacdo. Waxaa sidoo kale xusid mudan in ajandayaasha loo qaybiyey uusan qayb ka ahayn qodobka kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaaraha xukuumadda, balse waxaa jiray tuhun ay qabeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ah in la doonayo in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda. Markii uu kalfadhiga bilaabmay ayaa waxaa gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu soo jeediyey in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre iyadoo aan baarlamaanka la geynin mooshin isla markaana laga doodin. Gudoomiye Mursal ayaa sheegay in codka kalsoonida kala noqoshada ay u dhacayso qaab gacan-taag ah, isla markaana waxa uu codsaday in inta taageersan kalsooni kala noqoshada ay gacanta taagaan. Intii lagu wadi jiray hawsha kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayaa waxaa aqalka baarlamaanka hareeyay buuq iyo sabaxan. Waxaa la arkayay xubno ka tirsan baarlamaanka oo u badan kuwa golaha wasiirada oo taagan isla markaana qaylinaya. Xubnaha ka soo horjeeday kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayaa waxay isku dayeen inay hor istaagaan qaadida codka kalsooni kala noqoshada oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid sharci darro ah. Gudoomiyaha ayaa kadib codsaday inta ka soo horjeeda kalsooni kala noqoshada xukuumadda ay gacanta taagaan. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa kadib ku dhawaaqay natiijada isagoo sheegay in xukuumaddii ay dhacday. Xukuumadda kalsoonida waa lagala noqday, waa dhacday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda waa inuu soo dhisaa xukuumad awoodda in waddanka ay doorasho gaarsiiso. Kulankana wuu xiran yahay, ayuu yiri Gudoomiye Mursal. Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Abuukar Islow oo xubin ka tirsan Golaha Shacabka oo maanta joogay ayaa sheegay in wixii baarlamaanka ka dhacay aysan sharci ahayn. Waxa uu intaa ku daray warqadaha loo qaybiyey xubnaha baarlamaanka ay ku qorneed oo kaliya in doorasho laga doodayo.